عبد العزيز حسن محمد لفتقرن ورمضان kani waa hogaamiyaha ama madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed dadkuna ay u yaqaanaan Laftagareen waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nin sida ay doonaan ay u adeegsadaan hogaamiyaasha nabadii nolol 19 Diseembar sanadkii aynu soo dhaafnay ayay xildhibaanada koonfur galbeed u doorteen 4 sano ee soo socotay inuu hogaamiyo maamulkan tani magaceedu waa Zamzam Mahad Cabdiraxmaan marwada madaxweynaha ka sokow waa qaraabada madaxweynaha waxaynu u qaabilsan tahay maamulida xafiiska arrimaha haweenka abuuro ubadka koriyaan ilmo fiican oo baariyaal oo weliba aad dadku u dhageysa kasii socodkani magaciisu waa Ibraahim Baafo wuxuu ku magacaaban yahay jagada agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed waana dadka ugu dhow waqtigan hogaamiyaha koonfur galbeed waxaynu isku beel yihiin madaxweynaha waxaan lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dadka go'aanada ka fiirsashalaanta ka gaaro masiirka koonfur galbeed aan kasii socon sawirkan idin muuqdo waa Mahad Cabdiraxmaan Aadan waa sodonka madaxweynaha oo wuxuu dhalay Marwa Zamzam wuxuuna ku magacaaban yahay jagada taliyaha booliiska koonfur galbeed wuxuuna aaminsan yahay awoodda ugu weyn ee ciidanka inuu haysto haddaan laandheerta anaga le ka laandheersan aniga inta fadhi kun askariyan xukuma ku zaaidan waa liigu soo daray ad ka qaylinaysa adiga intaasna ma heli karto waana banaan baxaysaano sii socodkani waa Cabdifataax Mahad Cabdiraxmaan gacanyaraha madaxweynaha ka sokow waa madaxweynaha Seedigi wuxuuna la dhashay isku hooyo yihiin Zamzam waxaan aabbo wada dhalay Jarnaal Mahad oo ku magacaaban taliyaha booliiska koonfur galbeed dhammaantood hal beel ayay ka soo wada jeedaan aynu sii socon sawirkan idin muuqdo waa Maxamuud Maxamed Khayr waa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed waana milkiilaha raadiyo Baydhabo wuxuuna ku magacaaban yahay oo dhawaan loo magacaabay jagada wasiir dawlaha madaxtooyada koonfur galbeed waxaana qaraabo yihiin madaxweynaha sawirkan kale wiilkan yar idin muuqdo magaciisu Maxamed Cali wuxuu ahaan jiray muddadii lagu jiray ololaha doorashada sawir qaadaha Laftagareen kolkii madaxweynaha Laftagareen xafiiska la wareegay waxa loo magacaabay xilka agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed aqoon sidaasi u ballaaran uma laha warbaahinta wuxuuna ahaan jiray farsamayaqaan ka tirsan mid ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada Muqdisho magacaabistiisa warqadda waxa qaadacay guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed waxaynu isku beel yihiin madaxweynaha ka gudub ninka dhalinyarada idin muuqdo waa nin bulshaabi ah oo aad u firfircoon magaciisu waa Mustafa Sheekh waa agaasimihii hore wasaaradda dastuurka isku shaaneel la sameeyay ayaa waxa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee koonfur galbeed waxaynu isku qaraabo yihiin madaxweyne Laftagareen kasii soco magaciisu waa Nuurdiin Gacmo Dheer wuxuu ka mid yahay tiimkii Shariif Xasan Shaqaadan wuxuu ku magacaabnaa afyeenka maamulka koonfur galbeed sida wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdiraxmaan Sita awood qaybsiga uu saameeyay ayaa loo baahnaa in jagada afyeennimada uu waayo laakiin taas beddelkeeda howshiisii ayuu iska sii wataa waxayna qaraabo yihiin madaxweyne Laftagareen kani magaciisu waa Cali Isaaq wuxuu ku magacaaban yahay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska gaar ahaan daraawiishta koonfur galbeed waxayna isku beel yihiin madaxweyne Laftagareen kani magaciisu waa Abshir waana madaxa ilaalada gaarka ee madaxweyne Laftagareen isaguna waxa uu ka mid yahay dadka isku beesha yihiin madaxweyne Laftagareen aynu ka sii socono magaciisu waa Cabdullaahi Cali Watiin wuxuu ka mid yahay haraagi Shariif Xasan wuxuu ku magacaaban yahay gudoomiyaha degmada Baydhabo welina ma muuqato saasaan xilka qaadis lagu sameeyo dadka u dhundulala siyaasadda koonfur galbeed waxay arintaasi ku sababayeen in madaxweynaha isku beel yihiin kasii socodkani waa gudoomiyaha barakacayaasha koonfur galbeed wuxuuna qaabilsan yahay inuu maamulo dhammaan deeqaha loogu talagalay barakacayaasha koonfur galbeed waxayna walaalo yihiin gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin kani wuxuu ku magacaaban yahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka koonfur galbeed waxayna isku beel yihiin madaxweyne Laftagareen kani magaciisu waa Idris Leysto
wuxuu ku magacaaban yahay jagada la taliyaha arrimaha bulshada waxayna isku beel yihiin madaxweynaha. afarta tubood ee arrimaha horumarinta qaranka oo loogu talagalay in lagu qaybsado 4 beelood oo aan ku jirin beesha madaxweynaha. laba ka mid ah afartaas qofood waxay isku beel yihiin madaxweynaha, taasi oo ka dhigan in aan loo maamulin sidii loogu talagalay. koox lagu magacaabo Team Laftagareen waxay ka kooban yihiin in ka badan 25 xubnood, haddana dhammaantood waa hal beel oo madaxweynaha ku abtirsada. nabadoonnadii, odayaashii, haweenka iyo aqoon-yahankii codkoodii ayay bulshada ugu heelinayaan. الباب لي يردو إبابة كل شيء مدحوين أنت اللي كنا نقدر بفضان مدحوين بلان كسرو دوا هاو ذات شيء دوا هاو يا فضان أماراتي دي بدي أولادي مدحوين كل جيب تدا فضان بابي من نتي أول من إنك هذا لم يسمع لنا سيغن لنا مالك كوي مغاين يا مدبودي ما تسندل الدنيا هل سوغار الدنيا وحنا سيس الدنيا هل كوي يلا. haddaba su'aasha waxay tahay koonfur galbeed ma maamul dadka deegaanka ka dhaxeeya mise boqortooyo shakhsi uu maamulo.